السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برشاد الصومالية إلهي خير هسي ددال بدني موجينيسا ويدداليان waxaan aaminsanahay inay qof walbaba ay intii kartidooda tahay ay dadaalayso sidii cudurkaan iskaga ilaalin lahayd ama aysan u noqon lahayn kuwii gudbiyay marka laakiin wali waxa la yaabana wali baawurkan break galahayn waa socdaa oo covid wada sidaan ku celin lahayn inaan ka wada tashanno way hadda u fiirsataan maanta wasiiradu halkan waxa ka sheegtay 62 dadka la baaray waa dhalinyaro هذا اللي بقولك لحدن يلبو أنت لباري هذا أي تاي لحدن يلبو ضد كمشة يلا أوجرن الله حتى كماها جيسيال ودكوا سهل جمي تاريخ في عنكوله واحتر بدنها نوع عربان بنولشه وجشرينه أما قرعستها هذا أما مجالك له كتير أما وحرب هالنقطة أيام ما أنت ماشي يلا oo dad waayeela oo konton 60 70 80 isku jira hada dhalinyarada baaritaankeena ayada u badan waxa taas cadeynaysa in calaamado isku arkeen oo marka ama hadii kale nin saaxiib ahaayeen intuu tago isbaar cudurkii laga helay oo asna shaki ku jiro isleeyahay isbaar ama dad dariskiisa ama dad saaxiibadiisa waa wax saas waxa keenaya 62 dadka isbaaraya ama 70 markood waa gaaraan waa dhalinyaro 19 jir ilaa 39 jir cudurka dadka la bukaana waa dadku waayeelka ah bal isku xiray inta fakartaan isku xira ninka ogol marka inuu waalidkiis uu maanta cudur u geeyo ma jiro laakiin waxa uu jira adoon ogeyn ayaad cudurkii gudbinaysaa sida daraadeed aan isku soo aan gadaal u laabto oo ku laabto hal ku dhigi ahaa isbadbaadi oo badbaadi waalidka waa qodobka ha noqon dilaaga dahsoon marka maxaa ka wada waxa halkaas macnaheedu ay tahay waraadu iska badbaado cudurka inaa la kulantado maxaa sameynaysaa maaskiga gasho dadka ka durug afkaaga iyo indhahaaga iyo sakaaga faraha gelin nus saac kadib faraha iskaga dhaq biyo saabuun oo socda 20 second ilaa 30 daqiiqo ilbilaqsi iskaga dhaq ya inta fiican cun hadaa cudurka isku aragtid hadaa calaamado yeelatid guriga joog hadaa xanuuno kugu soo kordhayaan 4 waxa lagu siinayaa tala fiican lagu siinayaa aan hadda dadaalno dhalinyaro maanta waxaan jeclaan lahaa inaad hormuud u noqotaan wacyigelinta maanta socota cudurkan waa cudur idin badan waa cudur idinka la kulmaya waa cudur aan jeclaan lahaa inaad dhamaantiin inta gacanta isku qabsataan dhalinyaro aad imaanay meesha aanu hadda aan ka hadlayo nin dhalinyaro inuu yimaadaan ka jeclaan lahaa oo ninka dhalinyarada ah uu dhalinyaro la hadlo oo maanta wacyigelinta magaalada ka socota iyo gobolada ka socota inay hormuud u noqdaan dhalinyaradu ayagii inay is noqdaan dadka wada hadlayay kuwa isbaraarujinayay kuwa tilmaamaha fiican siinay aad u jeclaan lahaa arrinkaas marka maxay keenaysaa inay dhalinyaradu fahmaan inuu cudurku yahay cudur ayaga horta ilaahay wuxuu noogu gargaaray adduunka markaan barbar dhigno Soomaaliya maanta waxa u badani waa dhalinyaro laakiin adduunkii kale oo horumaray haddaan ka soo qaado Talyaaniga oo kale haddaan ka soo qaado Spain haddaan ka soo qaado Mareykanka waa dad waayeel dadka u tirada badan leh arrinkaas marka keenay anaga marka nin professor xisaab inta isku dhuftay oo fiican calculation fiican si wuxuu soo saaray in dadkeena waayeelka ah oo khatarta ugu jira cudurkan ay gaari karaan ilaa 90,000 war ilaahay baa idinku dhaarshay Soomaaliya 90,000 oo waayeel ma naga go'an oo dadkii wadankan taariikhdiisa soo dhidibada u soo aasay ay ka buuxaan dad ganacsatada waaweyn ay ka buuxaan dad siyaasiyiin oo awalna siyaasi aha haddana siyaasiyiin ah oo wadankan waxtar badan u soo sameeyay oo siyaasadiisa ka shaqeeyay ay ku jiraan suurtagal maaha waa inaan maanta gacanta isku qabsano 90,000 oo la qiyaasay inuu nooga dhacay inaan daafacno waay dhalinyaro mas'uuliyadda leedahay qaado dhalinyaro adaa wadankan bari adaa leh aduu ku harhaya adaa madaxweyne ka noqonaya adaa ra'iisul wasaare ka noqonaya adaa wasiir ka noqonaya adiga pilot ka noqonaya adiga general ka noqon ma fahamteen wax kasta oo majaala wadankan idinka ka noqonaya hadda inaad idinkuna isbadbaadisaan inta kale aad badbaadisaan
waa mas-uuliyo idin saaran ilaahay hortiisna beri laydinkala xisaabtami doono fadlan misna fadlan idinkuna iska badbaadsha coronavirus waalidkiina ka badbaadsha ha noqon dilaaga dahasoon wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu